بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo Banjir Media Production oo aanu hadahan oo kale idin ka soo gudbino barnaamijyo kala duwan oo xog iyo xiiso xambaarsan barnaamijkan ayaa noqon doona barnaamij aad u xiiso badan waxaanu noqon doonaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore ee Banjir Media aad kala socon jirteen barnaamijkan waxaanu ku soo qaadanay gabadhii ugu horeysay idaacadda radio Hargeysa amaba warbaahinta dawladda iyadoo baahintu si toos ah u socota farsamada gasha ama intii ugu horeysay idaacadda radio Hargeysa dhinaca farsamada bilowda haatanna iyadu dad sii bartay waa rikoor xiran Yasmin Ahmed Yusuf oo kamida hawlwadeennada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee waqtigan barnaamijkan ayaanu su'aalo door ku weydiinay waanad kaga bogan doontaan insha Allah ku soo dhawaada gabadhan idin muuqata waa Yasmin Ahmed Yusuf Yasmin muddo dheer waxay kamid ahayd ilaa waqtigii muxuu hayay ay kacaantay farsamo yaqaanada idaacadda radio Hargeysa haddaba Yasmin waxbay kaga duwaneed iyadu farsamo yaqaanada Yasmin ku soo dhawow Banjir Media Production aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed Muuse Banjir waan hambalyeynaa adigiyo meediyaha production Banjir aad baan idin salaamayaa labadiinaba oo dhawahay Yasmin bal hadda waxaad ka warantaa waqtigii ugu horeeyay ee aad timi idaacadda radio Hargeysa iyo sidaa horta wax weeyaan markii aan shaqada bilaabay markaan way kala duwanaayeen anu waxaan iyadoon halkan dalka laga qaxin sanad anigoo jooga oo tababar ku jira halkan laga qaxay laakiin si rasmi ah waxaan shaqada farsamada u bilaabay 19 bishii afraad Yasminay inta badan dadka qaarkood taariikhdooda way soo bandhigaan oo waxay sheegaan in muxuu ahaay waxa isaga aan looga horeyn shayga ay nooran karna Yasmin loogama horeyn waa maxay wax weeyaan marka laga hadlayo farsamo yaqaan waxa jiray sida sheekadaan ku maqlay laba hablood laakiin labada hablood waxay sameyn jireen recording markaan iraahdo maxaan ku faanayaan iraahdo talo Yasmin maxaan looga horeyn waxaan ahay afka Soomaaliga inta ku hadashay sidaan maca BBC-da ka warqaatay gabadhii ugu horeysay baahin idaacadeed gasha oo baahin live oo la baahiyo idaacaddu waxay eegaysaa naqaano waxay u qaybsamaan marka laga hadlayo farsamo yaqaanada qaar waxay sameeyaan recording oo barnaamijyada intaan baahinta gelin ayaa recordingkii la duubaa qaarna waxay galaan idaacadda si official u kaxeeyaan marka idaacadda sida officialka live ka hawada gelaysa ayaanu kaxeyn jiray xagan kale waan ka duubi jiray recordingka waan geli jiray laakiin waxaan isleeyahay kaliya cidi kaagamay horeyn idaacadda la gelayo baahinta ayaa igu maqaalaa sidaan waliba ku warqaateen maca BBC-da nimankii ka shaqeynay ka waraystay marka Yasmin ay dadka aan garanayn idaacadda baahinta tooska iyo barnaamijyada studio-ha lagu sii duubayo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin barnaamijyada qaar waa live baahintu waa live waa toos marka waxa weeyaan recording waxa weeyaan adoo kala maanta barnaamij toddobaadla leh maanta studio baa tagaysa barnaamijkii baa laga duubaya waxa laga yaabaa barnaamijka laga duubay inuu laba cisho ka bacdi baxo laakiin baahinta tooska ah waxa kamid ah wararka oo kale idaacadii oo la xiriirinayo waxyaabo badan baa kamid ah marka taasi ku kala duwan yihiin oo midna waa mid adag oo live ah oo hadii sanqar yar oo saasi ka baxdo mararka qaar koodna waa bixi jirtay berigi dalka la yimi oo khaladaa dhici jiray laakiin imika tadawur baa laga gaaray taasi ku kala duwan waa waxaad soo celin karto oo hagaajin karto iyo wax ka baxay oo soo celin karin farq u dhaxeeya wata waa hagaag bal hadda Yasmin Ahmed Yusuf waxaad noo sheegtaa oo bulshadana sharaxaad ka siisaa qofka lagu sii deynayo live-ka ama baahinta tooska sidoo ahaa maxaa lagu xulinay waxa lagu xulinayay marka ugu horeysa qofka horta idaacadda la iskama gali jirin waxa kaliya inuu lahayn idaacad baa TV-yadu xitaa mar dambe ahaayeen oo space-kii ay nagu soo biirantay intii dalka la yimi laakiin marka laga hadlayo idaacadda radio Hargeysa marka horeba intaan qof kaba la qaadan iyo intaanu hadal waxa la xuli jiray horta maleeyay qofkan idaacad codkeedii maba ka hadli karaaba la xuli jiray waaba marka wariyay hadii la arko oo guddi baa loo saari jiray ama dadka hore waaweyn wariyaasha baa eegi jiray haduu qofkaasi u qalmo inuu wariyay yahay oo la yiraahdo wallahi codkii idaacadda uu leeyahay waxna uu akhri karaa imaka inta badan waxa darka idaacadda la xiriirinayo la gamaleey laakiin lama gamaleey jirin warqadda inta la qaato ayaa qofka voice test wax la yiraahdo ama codkiisa tijaabi laga qaadi jiray
hadduu akhriskaa ku wanaagsanaado iyo hadduu codkii idaacadda yeesho ayaa lagu xulan jiray qofka codkii iyo akhriskiisa israacaan labadaas buu qofku wariye ku noqon jiray oo la oran jiray wallaahi wuu u qalmaayo qofkaas wuu noqon karaa wariye waaye markaa haddii qofkii aanu wariyenimo ku guulaysan meeshiina doonayo maxaa laga yeeli jiray waxa laga yeeri jiray eeg labay u qaybsanaan jireen marka laga hadlayo dadka waxaad moodaa imika inay qanaacadu ku yartay oo haddaad halkaa gasho la yidhaahdo wariye ma noqon kartid waxa laga yaabaa dadka labay u qaybsami jireen qaar way niyad jabi jireen qaarna way sii wadan jireen tusaale haddaan ku siiya anaaba iska soo qaaday anu markii ugu horreysay waxaan wariye noqonay markii ugu horreysay stuudiyahaasaan galay waxa la igu wariye ma noqon kartid iska soo baxa waa la iga soo saar marka maxaad ku noqon de waa la iga soo waxaan wixiina waan akhri kari waan gariire warqadii la dhiibay waan dhidid baa qooyay waxba waan garan waay Safiya Cali baa marka tastiga igula jirtay Safiya Cali markii way ka baxday Safiya Cali waxa oo imika baad aduga Allah yarxam raxmo oo duceynana yadii intii dhimatay baa wariyaad noqonaysa fadhiiso aniga laakiin studio waa la iga soo saaray waxa la igu yiri ma noqon kartid wariye ما نية شبنا اسمه والله ودي وريين نقوم وعي سيدا يمكن العضو قفكو هالكيم بيك قد جيسا ما حد كلا قبان كرتابان السري هالكي دين عايقو حفردي مالينيا الله يرحم الراحمين أبداق ودنتي بيسقونا هالكافر سمد فديه ولو نسحين برجع ونوحبك جرني أظن نبه هالكافردي ده ترى مركي واحد وما تقلب كم بهدي اللي يقولوا إنه جرن ميسيس كان نقطة ما كان نين ماشي توجي أو وري كأهانشر الله يرحم الراحمين سنو ودنتم محمد عمر كيس اللي ونشر إذا عد ما بليه ده أي إذا عبتك على لما نيتشبه ماشان حاجة بقول لي سوريا أنا جابك على حكاين النقط نين كاسين تدير جليو يفريسي وبلدن حفيز كيس يدا ولي بحكاين وهايستي يريس كفر ده هالقصة سكجت ببرا وحن لو بتشوتيه أيوه هذا يقول هالكذا شعلان هاي دينا تكش دي تروح أقول هالكين نكفدي مركب فرسمنا من جريني إنه ده واحد تبي ما بعمني أيان دوني halka caqabado badan bay igala kulmo dadkii markaa farsamada haystay runtii oo agaasimeeyaa lahaayo qaybo aad bay dhagaadeegan oo ii diideen sidii baa lagu qaxay markii dambe waxay igu diideenayeen inanna waa inanimo koow way igu diideen laba qof dhalinyaro aad u yar baan ahaa way ii diideen deetan waxay igu waxan waa mas'uuliyad markaa ma qaadi kartid deetana xitaa warqad baa la igu qoro markaan tageen israa galba waa la iga dabay ma jiro naga soo bax baa la igu jiro laga saar jiray studio wali ma ilooba taariikhda deetana hadana man iyo jabaan soo noqdaan aad waxay suurta gashay alxamdulillah ninka la yiraahdo Xasan Shukri ilaahay cimriga aqliga ha u barakeeyo markasta waan duceeyaa waa sheega isaga igu yiraahdo abti markay baxaan ay halka maraan ii soo galaan aniga ku baray waxay noqotay inaan la labada duhurnimo oo dadkii rawxeen idaacadda dhex fadhiyo marka ay labada gaadho ayaa waxaan sameyn jiray idaacadda baahintu bilaabanto koodii soo gali jirtay idaacaddu ayuu oran jiray hadaba imka kala wad ma joogaano daaqada stuudiyaha imka intuu isa soo taagaabo oran jiray askartii baa naga eegay halka basaasiin baa joogi jirtay askar baa joogi jirtay qofku waa 88kii qofku marka hadii la arko inuu wax wadwado markiiba la qabsan jiro waa xidhi jiray deetira daaqadu istaagi jiro wuxuu oran jiray intan daaqada askartii naga eegay kuwii adiguna wadwad siday doontaan noqotay waana baahintii dhamayd ee garanaysa waliba faqashtii la isku xidhay halkaasaan ku kala wadi jiro 7 cisho gudahood ayuu gacantay igu fadhiisay Xasan Shukri bara waaba la soo galo markaa qaxna Yasmiin ba hadda waxaad marxalad aad nooga warantay waxaad noo sheegtaa oo sharaxaad naga siisaa maalintii ugu horeysay ee lagu yiri idaacadda live-ka ama tooska baahinta wad iyo dareenkaaga waxay ahayd dadka qaar bas baahan mid kale waxay ku xidhan qofka tababara Xasan Shukri wuxuu ahaa dadkan ishawleen waxay dadka qaar ba gab leeya oo markay idaacadda wax yar ka aamusan ama wax bahaleeyaan aad u mashquula anu waxaan kamid ahaa idaacadda dadku xitaa haday aamusto u fiirsaday bal waxaan si ka yimi waxay ka yimaadeen transmitterka mise stuudiyahaaga wax ka qaldan yihiin mixerkaaga waa aniga isaga laftiisuna saasuun buu ahaa Xasan Shukri wuxuu ahaa dadka aad u xubsada xitaa haday idaacaddu aamusto laakiin waxa alxamdulillah iyadoona idaacaddii mawjadii weyneed markaa oo FM de markii dalka la yimi iyo gaariga imika halka idaacadda dhex yaala na transmitterka ay risaareen timcad meel laga soo jiiday galmay timcad la keenay oo leeydi meel baa laga soo jiido waxay isticmaali jiray SBS baa loo oran jiray waa la isticmaali jiray marka deetana waxaan sameeyay markii ugu horeysay idaacadda kaxiyay horta waxay timcada idaacaddu taalay idaacadda FM taaba ahayd wallahi wax warwara iyo buruga midna bay iguma helin laakiin farxad bay gelisay inaan gaaray halkii aan doonayo maanta idaacadii kaxaynayo alxamdulillah baan wax warwara xataa iguma helin halka dad gableeyaan ay ka baqaan kama baqan weligay waxba adigu markii dambe macallimad baad noqotay dhinacii farsamada waxaan halkan stuudiyaha markii halkan idaacadda la keenay radio Hargeysa inuu ka taaganay xaruntii weyneed ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ah halkan markii laga bilaabay waxa jiray dad badan oo markaa doonayay xilliga in la tababaro waxaan garanaa caqabadii naga soo maray
marka qofba inbuu isku qaybin jiray dadka oo shiftiyada lagu qoli jiray waxaan ka mid ahaanu dadkii shiftiga lagu qoray ee aad la yiri labada qof baad ku qoran tahay Khadar Xuseen Siciid imika agaasima ku xigeenka ah ayeen waaxda IT-ga iyo maxay communication-ka Khadar Xuseen weeyaan Khadar Xuseen waxa kale oo iyaduna jirta ayaan Cabdirasaaq xilligana madaxa farsamada aniga labada qof ayaa igu taxalluqayo marka laga taga qof baa tusasaa mid baad baraysaa laakiin dii qof la oran karo uu ku taabagalo uu ku shaqeeyay horta labadaas aan imika hor labada madaxii waa tahay aad baynu salaamayna bal hadda Yasmin kelmadaad soo jeedinaysa ee fariinta dadka sidaadan oo kale farsamada doonayo ama tusaale ahaan inaan hawlahan oo kale ku dhacaan maxaa u soo jeedinaysaa horta marka hore wax weyn qofku inuu ka goonaan la yimaada waxa doonaysa hadaan ka goonayn horta baran maysid marka judho horta waxa doonaysa waa inay bal horta adiga ka goonaadaan hadaan adiga ka goonayn oo qorshahaba kuugu jirida wax baran maysid mid kale marka laga hadlayo farsamo imika waa easy simple waxaad sidataa computer waxaad sidataa recorder card baad sidataa kaas ma imika la geliya lagu edit karaya laakiin markaan u fiirsado xataa mixerka markaan eegay imika baahinteena oo kale barnaamijyadii waxay kuugu jiraan maxay ahayd computer mixer dadkan garanay mixerku waa waxaan codka isku daray cadaynu cod isku daray wuxuu isu keenayaa kii hadlayay heestii baxaysay iyo hadduu doono sagaal waxba saa la isku daray marka waxaynu odhan karnaa waa walaaqa isku qase af Soomaali waqtigan marka la eego Yasminay computer baa laga shiday imika idaacaddii waqtiga maxay kaga duwan waxay kaga duwaneed waqtiga maskaxda waxay ku kala duwan yihiin ku sheegayde gaariyada imika la ka haysta gawaadhidu wax weyn manual ayay ahaayeen markii hore imika automatic waxa laga yaabaa gaariga qof kastaaba uu kaxeeya automatic anu laba cishan isku day gaariga waxaan ahaa xitaa marka laga hadlayo manualka xaajiyad baran wadan jiray oo 2 sanadood iyo 4 sanadood kaxeynay xaajiyadaas waxay gaari manual oo waliba hay'ad leedahay imika automatic marka tiraahdo kaxe gacantana iyo lugtan waxaan oo gacan iyo lug badan bakhtiye waa sidee lugba lama dhaqaajin soo xabad kaliya lagu wadaa markii ugu horeysay waan yaab waxaan waxay gaarigan lugta kaliya lagu horta saasi kale yiino maanta idaacaddii la wadi jiray taasi waa sida qof ka tagin bay idaacadda ka xin jiray maydhax baa la duubay oo la eegay maydhax baa wax lagu edit kareynay reel to reel wax la yiraahdo recordadeenii waaweynaa inta laga lagu shaqeynay maantana kaari laakiin ma hati dirta ma qaar baa u qaadan doona laakiin dadka saxaafadda way garanayaan imakadan haday booqdaan qolkeena kaydka way ugu tagayaan marka cajaladii waaweynaa reel to reel recorded loo oran jiray la gelin jiray kuwaasaan xitaa soo gaarnay iyadoo wax lagu edit kareynay oo aad codka ka dhexdeedayso marka aad baarayso codka halku ku jiro hadda waa maydhaxda marmarka qaar kood ba iyaro maydhaxo inta lagu codka isku xidhaysay ay kaalumaysay maantona dhasbin baad in yaro inta leeg aad ka baaraysaa marka waxa la soo maray marxalada adaga maanta laakiin laga faa'iideysan karaya habla badan oo ay bartoonood waa kuwa kaligood ba samaystay meel ay iska leeyihiin waxaan leeyahay si wado ka caajisan hanaydi ka goonaato midna waan u dirayaayo habla waxaan leeyahay ku haysireebin iska can qabta aad iyo aad baad u mahadsantahay Yasmin sida wanaagsan waqtigaaga noo siisay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa adigiyo miidiyahaaga intaasi ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaasi gaarka ah barnaamijkan oo kale inta aynu ku kulmi doono waa Betri oo dhinaca kamarada iyo isku dubaridka barnaamijka iyo Maxamed Muuse Banjid oo soo saarista barnaamijka hayo ku dhaafaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh